بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحda sharafta leh murashaxiinta xilka madaxweyne bahda saxaafadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogtiin waxaan jecelnahay maanta inaan idinla wadaagno sidaas oo kale arrimihii 19 ka dhacay iyo dhammaan waxa la xiriira doorashooyinka. waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sida aan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama farageli karo. dawladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, laakiin 19 waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaay inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in la isku dayo in la dilo. meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, ummad ayaa la argagixiyey. welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shala oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyey darjirka dahsoon insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimcaha. marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan. haddaan maanta xaqiiji weyno 60 iyo dhowr sano kadib inaan banaanbax nabadeed qabanno, macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hor taagan caqabaad iyo dictaatoriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi'da ugu horeysana waa xurriyaadka dadka. xurriyaadkaasna waxaa kafaalo qaaday sharciga. dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. taas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo. arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto si nabad ah, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka. marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. waxaadna ka garan kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in waxa hadda dhacaya wax ka badan aan samayno. waxaan doorannay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano, fursad siino dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan, cidday doonaan ay doortaan, lanala shaqeeyo. taas ayaana dhacday. mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalay aan aaminsanayn, maanta waa aaminsannahay, berri waa aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadkaan ugu yeeraynaa. waxaan aaminsannahay maalintii qarannimada Soomaaliya la aasaasay oo xurriyadda la qaaday, mabda'aas haddii lagu adkaysa lahay oo faragelinta ciidanku aysan imaan lahayn, maanta Soomaaliya meeshaan meel aan hayna joogi lahayn. marka ma oggolaa karno 30 sano oo burbura kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo, awoodda dowladnimada lagu takrifalo, doorashada meesha ay ka baxdo. waxaan rabaa inaan idiin sheego cidaan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayno war khilaafsan intay sheegto annaga noo nisbay karta ma jirto. warkaas in la fahmaan u malaynaa. waa waxaa leedahay golaha murashaxiinta. qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha. waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno. iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta, qof aan xil u haynin, murashaxiinta aan ka tirsanayn, afhayeen aan u ahayn ayaa hadlay. annaga dhiiggeena looma banaysan karo. waxaan u malaynaa aragtidaas waa cadda. midda labaad waxa waaye midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahad celino
labada madaxweyne goboleed madaxweyne Siciid Maxamed Dani Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada dadnimada leh ay la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u ahaa jirin aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa waxaan aaminsanahay inay tahay mawaaqif adkeynaysa dowladnimada Soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayno in ay ku timaado doorashada waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad waxaa wada ogtihiin madashaan waxay soo dhoweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay Dhuusamareeb qayb kama ahayn kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyey dadka danleyda ah oo doorashada galaa iyaga ahaayeen ay ahayd in laga tixgeliyo mana dhicin laakiin haddana waa soo dhoweeyeen waxay u soo dhoweeyeen heshiis jacayl ay u soo dhoweeyeen waxaan aragnaa 17 September inay sii dhimanayso waxayna u sii dhimanaysaa in reality-ga la iska indhatiraayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xalliyo inaan la rabin waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military boolis nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo mabaadidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa oo amar ka qaadana ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo marka 4 sano waa dhamaatay yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas'uuliyadda qaadaya hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyo dembigood waa laba laabmaya waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo galay arrintaas waxaan leenahay waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto dowladnimada inay sii socoto waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto tajaaribta adduunkaana tustay annagaa hore soo marnay dowlado badan oo Afrikaanaha soo maray kuwa Carabaha soo maray kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn marka waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta annagoo u jeedna waxaan saxaynaa khaladaadka maanta jooga waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno maxaa yeelay khibrad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burburkii marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga faraha kala baxaan siyaasadda ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga kala baxaan siyaasadda faraha waxaan rabnaa inaan u mahad celino dhalinyarada Soomaaliyeed ee diiday inay faldambiyeedka la amray ay ka qayb qaadato baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada mushaaraa lay siiyey askaraa layga dhigay dowladnimo kuma dhisantay intaas dowladnimo waxay ku dhisantahay aragti falsafad iyo waxay ku dhisantahay mabaadi sharci dowladnimo ku dhisantahay marka waxaan rabnaa inay u laabtaan waxa saxda ah waxaan rabaa inaan u gudbo madasha murashaxiinta dhammaantood waxay jeclaa lahayn berri doorasho in la qabto berri dambe iska dhaaf berri in la qabto
laakiin inay noqoto doorasho xur ah oo xalaala oo laga wada qayb qaadan karo. waxaan aaminsannahay xallinta khilaafaadka ka dhashay heshiiskii 17 September maalinba maalinta ka dambeysa khilaafku waa sii fogaanaya. maanta waxay taagan tahay dowlad goboleedyada shala qaybka inay yidhahdaan kama qayb gelin. taas waxay koos garaynaysaa doorashadii inaysan dhicin. marka waxaad isweydiisaa kala fogaashadan yaa mas-uulka ah. yaa la rabaa dalka inuu isku haayo, yaa la rabaa dadka inuu isu keeno, yaa la rabaa dadka inuu isu tanaasuliyo, yaa laga rabaa. mas-uuliyaddaas way saaranta. waxaan u maleynayaa inaadan jawaab iiga baahnayna. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed maanta waa maalin muhiima. waxaa samaysmaya taariikh Soomaaliyeed. laba dariiqa noo furan. dariiqi shalay aan ku dunno inaan marno iyo kan kaloo saxda oo dimuqraadiyada, xukun wanaagga, isu tanaasulka inaan marno. labadaas inaan kala dooran. waxaan hubaa inaan dooranayno midka kale awood fara badan iyo hub fara badan iyo ciidan fara badan iyo dhaqaale fara badan xaqa laguma fiiriyo, dowladnimada laguma fiiriyo. waxaa lagu fiiriyaa mabaadi'da ay ku dhisanta. marka annaga ka duulayna mabaadi'daas dowladnimo, annagoo ka duulayna adkaynta sharciga, annagoo ka duulayna wada jirka ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qayb weyn ka soo qaateen dhisidda qarannimada. haddana waxaa lagama maarmaana ayaga iyo dadka kaloo muhiimka inay qayb ka qaataan wadahadallo. inay qayb ka qaataan maxaa yeelay dadkii soo bilaabay waa ku kala tageen, waa ku kala aragti duwanaadeen. wakhtigeennii waaye annaga aan faragelin lahayn. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.